أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان خيرتي يوتيوب كوين إسلامي عشرين wuxuu ku saabsan yahay sidee aad kombiyuutarka high speed aad uga dhigan kartaa markuu damayo markuu soo kacayo. Marka aan ku tusiyo sida sahlan. kadibna waxaad furaysaa start menu-ga ayaad furaysaa. kadib markaad furto run ayaad ku qoraysaa. marka run aad ku qorto kadibna meeshaas sidaad ugu jeedo open ku hor meeshaas ay waxaad ku qoraysaa percentage temp percentage kadibna okay ayaad leedahay. marka daatooyinkan oo dhan aad u jeedo control a ayaad leedahay kadibna shift del ayaad dhigaysaa. sababta aan hadda aan u tirtiri karin waxay tahay hadda recording ayaa wadaa sidaas darteed ayaan u tirtiri karin waxaan oo idil hada laakiin waa iska tirtiraysaa. kadibna step 2 haddaan galno kadibna waxaad galaysaa start menu kadibna run ayaad ku qoraysaa. marka run aad ku qorto kadibna meeshaasi ayaa waxaad ku qoraysaa private ayaad ku qoraysaa. kadibna okay aad leedahay kadibna meeshaas aad ugu jeedo daatooyinkan oo dhan control a shift del ayaad isla qabanaysaa. kadibna escape ayaad leedahay meeshaasi. marka sidaas sahlan ayaad u samayn kartaa. qaybtii saddexaad haddaan galno qaybtan waxay ka hadlaysaa sida aad kombiyuutarkaaga markuu uu soo kacayo inuu high speed ku soo kaco. kadibna run ayaad qoraysaa kadibna meeshaas fanaas haddaad ugu jeedo meeshaas waxaad ku qoraysaa ms config ayaad qoraysaa. marka haddaad ku qorto kadibna meeshaas waxaa kasii dooranaysaa put meeshay ku qorantahay ayaad ka dooranaysaa. meesha sidaad hadda time out-ka aad u jeedo meeshaas waa 30 waxaad ka dhigaysaa 3 second ayaad ku dhigaysaa. kadibna apply kadibna okay ayaad leedahay. step 4 haddaan galno start menu-ga ayaad dib aad u furaysaa kadibna meeshaas waxaad ku qoraysaa registered ayaad ku qoraysaa. kadibna right click ayaad leedahay run administration ayaad ku dhufanaysaa. markii aad ku dhufato meeshaasi waxaa ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay hey local machine meeshaasi ayaad furaysaa. kadibna waxaad kasii dooranaysaa system ayaad kasii dooranaysaa. kadibna control set 001 ayaad ka dooranaysaa. kadibna waxaad kasii dooranaysaa control kadibna waxaad kasii dooranaysaa meeshaas qaybta dambe ay ku qoran tahay wait to service time waa 5000 marka waxaa laga dhigtaa 1000 sidaad u bedesho kadibna right click ayaad dhigaysaa kadibna modify ayaad ku dhufanaysaa. kadibna meeshaas 5000 waxaad u bedelaysaa 1000 ayaad u bedelaysaa. kadibna okay ayaad leedahay. marka sidaas sahlan ayaad u samayn kartaa. waxaana dareemi doontaa kombiyuutarka inuu high quality ama high speed uu ku noqdo. marka ha ilaawin video ina like iyo share iyo subscribe ina dhahdo kanaalkeenana. marka sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.